marka laga hadlayo caalamka ama wadamada dariska ah ama bulshada caalamka ee kalaba waxay diyaar u yihiin in caawiyaan Soomaaliya hadaan nahay dhinac walba naga taageeraan wali marka waxaad u malaysaa baahidii yani aanu qabna caalamka in caawinayna meeshii wali ka bixin oo u baahannahay xagga siyaasadda xagga maxalla dhaqaalaha xagga maxalla xirfadaha inay naga kaalmeeyaan waxaa ii muuqda Soomaaliya inay dariiqii saxda ahayd qabsatay dowladnimada iyo waxa aan filaynaa hal maalin kuma imaanayaan waxay u baahan yihiin waqti ma jirto booliiska qaranka inaan difaaco dalkayga iyo inaan difaacdo maadaama booliiskaasaan u soo galay atadi way jirtaa laakiin waa teebteeba loogu soo socdaa waa laga buuxoyaa. I'm originally from Somalia, but when I was 4.5, we moved to America, and I just returned a few months ago. It's been safe, but I think there's still more to be done. businessku way noolaatay rajadii dadku way soo laabatay dabcan rajo ammaan darro soo jirtay 22 sano kumana annaan ballan qaadin suurtagalna ma aha hal maalin bay dhamaanaysaa 20 sano dukaankan furan yahay ganacsigaana ganacsi ma sha Allah sida hore ma aha hadda waa meesha jidadku way wada furmeen hadda waa meel oo bakaaraha marka hore waa wada xirxirnaa hadda waa wada furan yahay annaga Djibouti ana laga soo adeega ma sha Allah carbadeena way socotaa. We elected a president who didn't come to power through weapons. Young kids now going to schools can think that by being a civil society a teacher you can become a president. Hamar dawlad Hamar baan ka bilaabay hadaayadku yaanu ku dhaxalay oo aynu ku bilownay sidaan Hamar uga bixi lahayn waxaan runtii wada tagnay ariga Soomaaliya oo dhan suuqu xaalado badan oo soo maray asoo cariiri ku jiro oo dhib badan oo maaragtay ammaankiisa uu naf lahayn oo cabsi badan oo saa'id oo taalla waa soo mariyay alxamdulillah hadda xoogaa xamar furantay beecda xamar dadkii baa xamar ku batay dadka xamar markuu ku batay marka geel hilibka wartaankiisa batay geel hadda xamar loo wada geel meel kale u socdo ma xamar u socdo xamarka marka xoogaa dadka ku batay hilibka rabtaankiisa badnaaday geel marka hadda xamar ku socdo ugu badan hadda waxa weeye caafimaad darro muxuu ahayto hooyo uur leh oo anaamiga oo kale oo khatara mid dhiikara la keenaya marka saan u manage karayno u maamulno dadku in muxuu ahayto ay bartaan tagin sano oo la soo dhaafay burburka uu jiriyay inta kadib eeday ma nabadan ka bacdi waxaan noo yimideen alxamdulillah ciyaartan iyo xawaa maartay dhaqanka hidiyaha iyo dhaqanka la yiraahdo caalamku naga taageero xag maaliyad xag farsamo xag siyaasad xag cilmiba diyaar ayaan u nahay wana baahi wali aan qabnaa hadaan nahay dalka Soomaaliya